Kiev oo sheegtay in Ruushka gantaalo iyo diyaarado aan duuliye lahayn ku weeraray kaabayaasha tamarta ee Ukraine. Ruushka ayaa weerar ku qaaday Ukraine isagoo adeegsanaya daraasiin diyaarado weeraro aan duuliye lahayn, gantaalo plastic ah iyo kuwa cruise ah, isagoo si gaar ah diiradda u saaray kaabayaasha tamarta, waxaana ku dhintay ugu yaraan hal qof, sida ay sheegeen militariga Ukraine iyo mas'uuliyiin maxalli ah. Weeraradan oo dhacay habeenkii ayaa ka dhacay caasimadda Kiev iyo nawaaxigeeda, dekedda Odessa ee ku taala Badda Madow, iyo sidoo kale bartamaha Ukraine ayay sheegeen. Madaxweyne Volodymyr Zelensky ayaa bartiisa X ku sheegay in weerarada sidoo kale lagu beegsaday gobolo aad u badan, wuxuuna xusay in bartilmaameedka ugu weyn uu ahaa waaxda tamarta, balse sidoo kale waxyeelo ay ka soo gaartay dhismayaal la degan yahay iyo wadooyinka tareenada. Moscow weli xoogga ayay saaraysaa duqeymaha halkii ay ka dooran lahayd wadada diblomaasiyadda, ayuu yiri Zelensky, isagoo intaasi ku daray in toddobaadkan kaliya Ruushka uu ku qaaday Ukraine in ka badan 1,300 oo drones iyo in ka badan 1,400 oo bom oo cirka laga hago iyo 96 gantaal. Ilaa iyo hadda wax jawaab ah kama soo bixin dhinaca Ruushka. Weeraro ku dhow maalin walba ku dhaca nidaamka tamarta. Mareykanka ayaa isku dayay inuu dhexdhexaadiyo heshiis nabadeed oo u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine, balse horumarka laga gaaray ayaa ahaa mid gaabis ah oo marba istaagaya, iyadoo Ruushka uu dalbanayo in Ukraine ay ka baxdo qaybo ka mid ah gobolka bari ee Donbas ee uu weli gacanta ku hayo. Arrin ay Kiev si cad u diiday wadahadaladii ugu dambeeyay ee labada dhinac ku dhexmaray Geneva 17 ilaa 18 Febraayo ayaana keenin wax natiijo ah oo la taaban karo. Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay, 5 kalena waa ay ku dhaawacmeen gobolka Kiev, iyadoo khasaare laga soo sheegay 5 degmo oo ay ku burbureen in ka badan 10 guri, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Mykola Kalashenki oo qoraal ku baahiyay Telegramka. Gudoomiyaha gobolka Odessa oo leh Kiber ayaa isaguna Telegram ku sheegay in weerar drone oo habeenkii lagu qaaday kaabayaasha tamarta uu sababay dab aad u weyn, balse dabkaasi markii dambe la damiyay. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in Ruushku uu habeenkaasi soo tuuray 50 gantaal iyo 297 drone, hase yeeshee cutubyada difaaca cirka ay soo rideen ama ay fashaliyeen 33 gantaal iyo 274 drone. Tani waa argagixiso aan caadi laga dhigi karin, waa in la joojiyaa. Ruushku ma ruuxi karo dunida, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Ukraine Andriy Sybiha, oo ugu baaqay beesha caalamka in ay cunaqabateen adag saaraan Kremlinka. Ruushku wuxuu ku dhawaad maalin kasta weeraraa nidaamka tamarta ee Ukraine, isagoo garaacaya xarumaha korontada laga dhaliyo iyo saldhigyada qaybinta korontada. Weerarada lagu hayo xarumaha korontada, shabakadaha gudbinta tamarta iyo waaxda gaaska ayaa qayb ka mid ah duulaankii balaarna ee Ruushka uu ku qaaday Ukraine bishii Febraayo 2022. Moscow ayaa beenisay in ay si ula kac ah u beegsato rayidka, balse waxay sheegtay in kaabayaasha rayidka ay yihiin bartilmaameed sharci ah, maadaama weerarkoodu uu wiiqi karo awoodda Kiev ee dagaalka. Dhanka kale, Kiev waxay ku doodaysaa in ujeedadeedu ay tahay in lagu dhibaateeyo shacabka lana jabiyo adkaysiga iyo niyadda dalka, arrin muujinaysa in dagaalku aanu ku ekaan rasaas oo keliya, balse uu taabanayo lafaha nolosha iyo rajada bulshada. Iiraan ayaa marinbiyoodka Hormuz ku samaysay tijaabo gantaal cusub oo nooca ridida dheer ee ku xiran markab dagaal oo cusub, kaas oo loo bixiyay Suleyman Class oo loogu magac daray General Qasim Suleyman oo la dilay 2020. Xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan ayaa weli cirka isku sii shareeraysa. Dhanka kale, ciidanka badda Iiraan ayaa sameeyay bandhig awood militari oo xooggan, kaas oo la rumaysan yahay inuu Washington ku qasbi karo in ay 2 jeer ka fiirsato ka hor inta aysan qaadin tallaabo militari ah. Talaadadii 17 Febraayo,
Iiraan waxay geysay markabkeeda dagaal ee casriga ee nooca Shahid Suleiman class marinbiyoodka Hormuz oo ka mid ah marinada badeed ee ugu xasaasisan uguna istiraatiijiysan dunida. Marinbiyoodka Hormuz waa marin ciriiri ah oo ay maalin kasta maraan qayb aad u weyn oo ka mid ah sahayda shidaalka dunida. Intii uu socday leyliga badda, markabka dagaal ee Shahid Sayid Shirazi ayaa si guul leh u riday gantaal difaaca cirka ee riddada dheer ee Sayid 3G isagoo si toos ah u ganay nidaamka tooska u kaca ee markabka. Tani waxay ahayd markii ugu horeysay oo Iiraan ay gantaal difaac cirka oo noocaas ah ka rido badda dusheeda. Talaabadan Iiraan waxay si cad u muujisay istiraatiijiyadeeda loo yaqaano Sea Daniel, taas oo ah qorshe loogu talagalay in cadowga laga hor istaago ama laga xadido marin u helidda biyaha muhiimka ah xilliga dagaalka. Markabka nooca Shahid Suleiman class ayaa loo arkaa horumar weyn oo ku soo kordhay awoodda ciidanka badda Iiraan. Waxaana lagu dhisay qaab loo yaqaano catamaran oo micnaheedu yahay in uu leeyahay 2 jir oo biyaha gala, halkii uu ka ahaan lahaa 1 jir. Dhirirkiisu wuxuu u dhaxeeyaa qiyaastii 65 ilaa 67 mitir, culeyskiisuna wuxuu gaarayaa ku dhowaad 600 oo tan. Qaab dhismeedkan ayaa siinaya deganaansho iyo xawaare ka wanaagsan marka uu ku socdo badaha kacsan. Markabkani sidoo kale wuxuu leeyahay tiknoolajiyad qarsoodi ah, stealth technology. Qaabkiisa xagalada fiiqan leh ayaa yareeya raadkiisa raadeerka, halka jirkiisu aluminiyumka ahi ka dhigayo mid khafiif ah oo ay adag tahay in si sahlan loo ogaado. Waa markabkii ugu horeeyay ee Iiraan leedahay oo uu ku qalabaysan yahay nidaamka ridista tooska ee gantaalada Vertical Launch System (VLS). Dusha markabka waxaa ku yaala 16 meelood oo yaryar oo loogu talagalay gantaalada difaaca cirka ah sida Sayid 2 iyo Sayid 3, iyo sidoo kale 6 meelood oo waaweyn oo loogu talagalay gantaalada riddada dheer ee cruise-ka missileska sida Abu Mahdi. Intaa waxaana dheer, markabkan wuxuu ku hubeysan yahay qori culus oo 30 mm ah, dhowr qori oo 20 mm ah oo si xawaare sare leh u rida, iyo 6 gantaal oo ka dhan ah maraakiibta cadowga. Mas'uuliyiinta Iiraan ayaa sidoo kale sheegay in mustaqbalka markabkani qaadi karo gantaalka Jadar 474, kaas oo la sheegay in uu gaari karo masaafo dhan ilaa 2000 oo kiiloomitir. Taas oo muujinaysa in markabkani aanu ahayn oo keliya gaashaan difaac, balse uu noqon karo waran dheer oo meel fog wax ka gaara haddii xaaladuhu halkaas ay gaaraan.